السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada sheekadii ninkii Epstein Files wiji kala ayay yeelatay horta ninkaas la yiraahdo Jeffrey Epstein waxaan ognahay inuu ahaa nin maalqabeen ah oo wuxuu ka ganacsan jiray gabdhaha da'da yar ayuu ragga madaxda ah meelo qarsoon oo jasiirado gooni ayuu lahaa inta ugu geeyo lacag ka qaadan jiray marka waxa leeyahay gabdhahaas yaryarka ah ayuu ka ganacsan jiray ninkan markii dambe waa tii arintiisii la fahmay oo la soo xiray bishii sagaalaad marka ee sanadkii 2019 ayaa ninkaas waliba Trump ayaa xilligaasi wadanka madaxweyne ka ahaa xabsiga New York ayuu ku dhintay waxaana la yiri ninka asaga ayaa istilay oo suicide ahaan uu isku dilay laakiin wararku waxa ay leeyihiin ninkaas asagu isma diline maadaama sir madax badan uu hayay ninkaasi xabsiga waa lagu dhex diray marka Trump xilligii ololaha uu ku jiray waxa faylalka uu sheegay in uu soo fasaxi doono waxa kamid ah faylalkii ninkaas laga diyaariyay waxyaabihii laga qoray in JFK dilkiisii sidoo kalena Martin Luther King JFK waa soo fasaxay Martin Luther King uu soo fasaxay laakiin ilaa hadda Jeffrey Epstein faylalkiisii shacabka looma soo bandhigin xitaa isaga iyo Elon Musk markii ay isku dhaceen Elon Musk waa kii bartiisa X ku soo qoray sababta ay wasaaradda cadaaladda iyo FBI ay u soo bandhigi laayeen Trump ayaa ku jiray walow 2 maalmood kadib oo arintaasi tiray hadaba arintan mar kale ayay soo cusboonaatay maanta Trump golihiisa wasiirada isagoo la shiraya ayaa wasiirka cadaaladda Pam Bondi oo dhinaciisa fadhisay midig waxaana u dhaxeeyay wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa wariye waxa uu weydiiyay markii uu shirkii golaha wasiirada uu soo dhamaaday ninkaas Jeffrey Epstein ma noo xaqiijin kartaa inuu san wakiil wadamo ajnabi ah oo san ahayn oo sirta wadamada oo san u kala gudbin jirin isla markaana dadka macaamiishiisa ahaa ee liiska macaamiishiisa maxaa loo soo bandhigi ayaa la weydiiyay marka intii aysanba iyadu ka jawaabin ninkii Trump ahaa ayaaba soo boodo yiri usug wuxuu yiri wali waxaad ka hadlaysaan inuu Jeffrey Epstein sanado badan kadib markaas wuxuu yiri waxyaabaha ka dhacay Texas oo dadkii uu la jeedo iyo guulaha toddobaadkan aan gaarnay oo sharcigiisa The Big Beautiful Bill oo ka wado ma waxa wali ka hadlaysaan inuu ninkaasi qurunka ah Jeffrey Epstein arintaasi arin la rumaysan kara maahan wasiirka cadaaladda ayuu ku jeestay wuxuu yiri waxa doonaysaa inaad waqti ku lumiso arintan oo aad ka jawaabto markaas ay tiri inaan wax ka iraado waan doonayaa markii dambe wuxuu yiri aniga waan la yaabanahay in sanado intaanoo sano kadib wali Jeffrey Epstein aad ka hadlaysaan markii dambe wasiirka ayaa ka jawaabtay oo waxa ay tiri wali ma hayna wax cadeynaa inuu wadamo ajnabi oo wakiil u ahaa laakiin arinta la yaab kale waxay tahay wasaaradda cadaaladda waxay soo bandhigtay muuqaal xabsiga habeenkii ninkaasi uu dhimanayo waa isdilaldahayay marka waxa muuqanaysa si saacadu ay u tahay xabsiga kamarada qolkiisa ku xirnayd 59 daqiiqo si ay tahay 5 saac iyo 59 daqiiqo siday u tahay halkaas daqiiqo intuu boodo 6 saac ay saacadu ku dhacaysa marka halkaas daqiiqo maxaa dhacay ma halkaas daqiiqo ayaa ninka lagu dilay wasiirka cadaaladda markii la weydiiyay waxa tiri saacad kasta xabsiyada markii ay 6 saac isbedelayso way isreset garaysaa sidaas darteed halka daqiiqo habeen kastaba meesha waa ay ka maqan tahay marka meeshaasi su'aal ayaa ku jirta oo ah maxay halkaas daqiiqo ay uga maqan tahay saacada ma ninka halkaas daqiiqadooda lagu dilay oo qoorta laga jafiyay sidee wax u dhaceen bal muuqaalka ila daawada muuqaalkan wasaaradda cadaaladda ayaa shaacisay halka daqiiqo ayaa ka maqan waa 20 second bal wax yar ila daawada waatay muuqaalkaasi kadib markaa waa kan marka Trump markii su'aasha maanta isagoo golaha wasiirada la shiraya wasiirka cadaaladda markii la weydiiyay Trump oo ka boobay oo waliba careysan ninkii Elon Musk ahna waxa uu soo qoray bartiisa X ku soo qoray sidee shacabku kalsooni ugu qabayaan Trump haddii aan la soo fasaxaynin faylalkii Jeffrey Epstein bartiisa X ayuu ku soo qoray marka Trump bal jawaabtii uu ka boobay wasiirka cadaaladda Pam Bondi iyo sida uu xanaaqsanaa iyo waliba wasiirka cadaaladda jawaabtii ay ka bixisay su'aashii la weydiiyayna wax yar ee la daawado Yeah, sure. If I could I just interrupt for a second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable.
Do you want to waste the time, and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this, where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Sure. First, to back up on that, in February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I said, I was asked a question about the client list, and my response was, it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file, along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Also, to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. To him being an agent, I have no knowledge about that. We can get back to you on that. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively, the video was not conclusive, but the evidence prior to it was showing he committed suicide. And what was on that, there was a minute that was off the counter. And what we learned from Bureau of Prisons was every night, they redo that video. It's old, from like 1999. So every night the video is reset, and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that as well, showing that a minute is missing every night. And that's it on Epstein. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. waxyaabaha kale soo kordho stay tuned, halkan ayaa idinku soo gudbin doona.